wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa magaalada Muqdisho kulan wuxuu kula qaatay danjiraha dalka China u fadhiya Soomaaliya. Axmed Ciise Cawd ayaa waxa uu xafiiskiisa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya uu ku qaabilay danjiraha dowladda China u fadhiya Soomaaliya. Wasiir Cawd iyo danjiraha China ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal, iskaashiga maalgashiga, dhinaca ammaanka, ganacsiga iyo sidoo kale isweydaarsiga farsamada iyo siyaasadda iyo arrimo kale. Dowladda China ayaa Soomaaliya ka taageertay dhinacyada samafalka, ammaanka, ganacsiga iyo maalgashiga, waxaana dhowaan dowladda China markab ay u soo dirtay Soomaaliya uu ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho, waxaana markabkaasi uu sidaa caawimaad ka timid dowladda China, waxaana China caawintaasi ay ku sheegtay inay tahay mid ay ugu talagashay in lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolada dalka, kuwaasoo sanadihii ugu dambeeyay abaar ay la soo darseen, inkastoo muddooyinkii la soo dhaafay roob dadku ay ku diirsadeen ay ka da'een gobolada dalka. Dowladda China ayaa badi wadanka Soomaaliya waxaa waqti badan ay ku bixinaysay sida dowladda federaalka Soomaaliya cilaaqaad ay ula yeelan lahayd iyo sidoo kale dowladihii dalka soo maray, iyadoo doonaysa in dalka Soomaaliya uu noqdo meelaha muhiimka ah oo China ay ka howlgasho maalgashigan ay ka samaysan karto.